maanta oo halkan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama shir jaraa'id ay ku qabteen shirkan dulucdiisa ayaa waxay tahay inay kaga hadlaan macnaha dadka xaaraanta ku karinaya suuqyada ama meelaha qarsoon ku karinaya inay kaga hadlaan oo ka waaniyaan ayna soo maraan oo ay meelaha ay tuunsan yihiin ay soo maraan iyaga oo kaashanayo oo mar walba oo iskaashi ka dhaxeeyo wasaaradda diinta iyo awqaafta imikana ay u balansan yihiin bacda duhur inay soo maraan meelaha qaarkood ay soo maraan shirkan jaraa'id dulucdiisa waxay tahay in afurka xaaraanta ee maalintii dadka bilaasoonka iyo meelaha ay ku cunayaan la joojiyo waa wax diinteena islaamku ina amrayso waa wax dadka mas'uuliyiintana xilaw ka saaran yahay qodobka labaad ee soo raaca waxa weeye xildhibaanadu maadaama ay yihiin dadkii bulshadu ay soo dooratay una ilaaliyaan bulshaweynta danta ay u ilaaliyaan waxaan mar labaad ka hadlaynaa arrinta jidadka oo runtii intan rabadaanta hadalhaynteedu badan tahay in jidadka sideeda markaasi loo ilaaliyo aanan la ogolaanaynin ciddii maxaa la dhahdaa meel jida dhisanaysa ama dawladda haato ama dadweynaha haato way naga go'an tahay annaga xildhibaan ahaan runtii jidadka inaan wanaajinno oon laamiye ka dhigno oon waxyo ku beerno ayaan markaan kaambeenka ku jirnay inaan ku gallay laakiin kuma aanaan ballamin bulshadana nagamayna sugaynin inaan guryo ka dhisno iyo inaan jidad xidhno alxamdulilah jidadka way noo socdaan dhismahoogii inta xidhan iyo inta iminka maranku ka jirana waxaan rajaynaynaa oo go'aanna naga inaan bannayno aad iyo aad bay saxaafaddu u mahadsan tahay wabilaahi tawfiiq kullayna xildhibaan baa ka yar dhawaajiyey waxa weeye xagga saxaafadda iyo xisbinimada runtii waxa weeye maanta dawladdan jirta iyo dawladdii hore waxaan odhan karaa anugu dawladdii hore xisbinimada ayaa runtii waxa weeye ku weynaa laakiin maanta waxa weeye waxaad mooddaa inay wax badan xisbiga kulmiya ee maanta talada hayaay cid dimuqraadiyad kaga horraysa ay maanta inayna jirin baan runtii waxa weeye anugu yanqiraya oo waxa weeye qof walba wuxuu samaynaya kii reerkooda raacaya reerkoodu iska raacaya kii wax kale waxa weeye wuxuu iska yaani waa dimuqraadiyad heerkii ugu wanaagsanayd buu maraya saxaafad la qabto oo waxa weeye caburin iyo waxa iska daa waayo waxa weeye tiimka xildhibaanada waxaad ogeyd in xisbi ahaan ay ku wada shaqayn jireen laakiin xildhibaanku imika wuxuu hadduu doono waxa weeye kii kale reer hebel xaafadoodu iskaga tegaya oo kaas waxa weeye tiirka la xajiraya kullayna waxa weeye runtii xisbiga kulmiya maanta dimuqraadiyad halkii ugu weynayd buu joogaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan u ballansanay ballan golaha deegaanku lahaa oo ka dhacayay xafiiska badhasaabka ballankii arrimo farsamo awgood buu nooga baaqday inkastoo waxyaabihii aan ka hadlaynay ay ahaayeen oo u badnaayeen arrinka aan kaga hadlaynay oo ahaa jidadka magaalada oo imika meelo badani xidhmeen waxa weeyaan waxaan dadweynaha iyo ugu baaqaynaa waxa weeyaan jidadka inay ilaashadaan dadweynuhu kollayna jidadka aan ka hadlaynay aduu arrinkaygii u baaqday laakiin waxaa jirta arrin ilaa imika aan weli joogsan oo sariimadda axmed guray oo la dhisayo oo qolo shirkadii soo qaadatay kollay dan dadweynaha loo dhisayaa laakiin jid baa laga dhisayaa meesha waxa weeyaan jidkaasina waxa weeyaan meel kaloo kaga habboonayd in la helaa laga yaabi lahaa halkaa haddii laga dayn lahaa waxa weeyaan kolley badhasaabkana waan kala hadalnay arrinkaasina weli wuu socdaa dhismihiisii maanta imika waxay noo soo sheegeen jiingadii la saarayo kolley go'aan ka soo saari doonnaa wixii ay nala noqoto ayuu golaha deegaanku ka soo saari doonaa arrinkaasi welina iskumaanaan waafaqin dhismihiina wuu socdaabaa layidhi badhasaabkana waanu sheegnay arrinkaasi wuxuu u taallaa guddiga fulinteeda dawladda hoose iyo badhasaabka xildhibaan waxaa jirta arrintaasi in la caddeeyey oo saxaafadda loo caddeeyey in si sharciya lagu dhisay taana dawladda hoose ay kolkaa idinku dawladda hoose haddaad ka mid tihiin fikirkan ka duwanaya in meeshaasi ay sharci darro tahay maxaa keenay horta guddiga fulintu waxay fuliyaanuun go'aamada ka soo baxa golaha yaa
go'aanada ka soo baxa golaha unbay fuliyaan go'aan gole oo lagu fuliyey ma hayno go'aan guddi joogta oo lagu fuliyeyna ma hayno go'aan guddi fulneed oo halkaa ka soo baxayna inaanu jirin bay aniga ila tahay ee shakhsiyaad guddiga fulinta ka midun hawsha ay galeen ma u caddayn kartaa bulshada shakhsiyaadkaasi iyagoon guddidiiba kala tashanin fuliyey shaqada dhismahaas kolley waa guddida fulinta dowladda hoose ya kolley waa guddida fulinta dowladda hoose go'aamada ay ku shaqeeyaan ay fuliyaanna waa go'aan gole ama go'aan guddi joogta ah unbay ku shaqeeyaan sida ay ka dhawaajiyeen xildhibaanadii hore waxay tilmaameen inuu barasaabka ay kala hadleen arrin xagga saxaafadda inayna kala hadlin xildhibaanadu ayna ka hadli karin arrintaasi iyo shirkan barasaabka isugu kii yeelay maxay tahay dhexdhexaadintan uu barasaabkina dhexdhexaadinay kolley waxay ahayd un wada hadal arrimaha jidadka lagaga hadlayey arrinkaa waxaa naga soo dhex galay arrinkaa farsamo ee safarkaa unbaa naga soo dhex galay kolleyna wuxuu ahaa un toosin maamul unbuu ahaa wax kale maahayn